Assalaamu calaykum dhammaan. Aaladaha internetka kala duwan ayaa sahlay in macluumaad fara badan si sahal ah inagu soo gaaraan iyadoona horaan aysan arrintaa u jirin. Dad fara badan ayaa maalin waliba ku mashquulsan baaritaanka iyo ka bogashada macluumaad aysan hore u ogeyn ama aysan u garanayn. Dad badan ayaa u maleeya in haddii maalin waliba ay waqti badan ku dhumiyaan dheehashada website-yada ay gaareen cilmi iyo aqoon sare, balse arrintaasi ayaa ah mid aan sax ahayn oo waqtiga oo internetka lagu dhumiyo laguma barto macluumo waliba, xitaa haddii aad shaqadaada ka dhigto arrintaa. Iyadoo ay sidaa tahay ayaan rabaa inaan aqoontiina iyo ogaalkiinaba waasicino si aad u ogaataan una barataan macluumaad fara badan oo laga yaabo inaadanba hore u maqal. Balse intaa ka hor, calaamadda ka helidda guji oo ogow midaas inay dhiirigelin inoo tahay si aan mar kale kuula wadaagno muuqaallo iyo macluumaad qurux badan. Macluumada ugu horeysa, in badan oo dadka ka mid ah ayaa jecel cunitaanka chocolate-ka ama shukulaatada, oo haddii aysan helinba ay halis galayaan. Xitaa haddii aadan jeclayn shukulaatada, waxaa hubaala inaad noloshaada mar un soo isticmaashay. Marka aan soconno suuqyada dhexdooda ayaa waxaa caado ah in marka aan aragno shukulaataduna soo jiidato sidaasina ku iibsanno. Dad badan ayaana laga yaabaa inaysan garanaynin habka loo sameeyo shukulaatada. Haddaba aan kula wadaago sida loo sameeyo wax soo saarkan aadka u macaan. Hawsha ayaa ka bilaabanaysa in la soo kulminayo ama la soo ururinayo miraha kakao oo laga kala keenayo meelo kala duwan oo caalamka ka mid ah. Tusaale ahaan, Ameerikada Waqooyi iyo tan Koonfureed, Australia iyo Galbeedka Afrika. Miraha oo qalalan ayaa la soo ururinayaa, darajooyin kala duwan ayayna hawshu leedahay. Marka hore, miraha shukulaatada laga sameynayo ayaa la dhigayaa meel heerkulkeedu u dhaxeeyo 120 ilaa 140 digrii. Midaasi oo looga dan leeyahay si qolfaha kore looga fujiyo miraha si kuwa nadiifka ah ee gudaha ku jira u soo baxaan. Iyadoona kadib la shiidayo oo laguna cajiimayo, laguna darayo sonkor, burcad iyo waxyaabo kar ka samaysan. Marka la shiidana waxaa lagu daraa caano la qalajiyey. Laga yaabaa inaad hadda isleedahay ama aad u malaynayso hawsha shukulaatadu waa dhammaatay. Maya, hawshii weli waa ay dhiman tahay oo 1 iyo 2 ma joogto. Marka la diyaariyo, waxyaabihii la isku dardaray ayaa lagu dul shubayaa meeshii loogu talagalay, iyadoo qaybo yaryar laga dhigayo si loo sameeyo qaabkii shukulaatada markaas loogu talagalay. Waxaana lagu darayaa dareeraha sababaya ama keenaya marka dambe in isku darkan qaato magaca shukulaatada. Waa sidaas habka loo sameeyo shukulaatada. Haddii shirkadda sameynaysa ama soo saaraysa shukulaatada tahay mid yaryaraynaysa, waxay u sameynaysaa makiinad gaar ah, kadibna waa la qalajinayaa oo lagu shubayaa halkii loogu talagalay. Balse shukulaatadu haddii ay tahay mid fidsan oo aan kuskusnayn, weelo loogu talagalay ayaa loo adeegsanayaa, iyadoona hawsheeda halkaa ka bilaabanayso oo waxay qaadanaysaa 2 saacadood. Sidaasi weeye xaalka iyo sameynta ama soo saaridda shukulaatada. Macluumada labaad, maalin ma ku fikirtay inaad socoto iyadoo weliba jawigu qabow yahay, kadibna ma isku dayday inaad xumbada ku ciyaarto oo sida buufinta oo kale dabaysha ka saarto ama aad bajiso? In badan oo naga mida ayaa laga yaabaa inay aaminsan yihiin in xumbadaas tahay ubur ka dhalatay saabuunta ama oomada, balse arrintu sidaa maaha. Oo uburtan sida banooniga u wareegsan barafka ayay ka samaysmataa, wax yar kadib ama waqti kooban gudihiisana waa baaba'daa. Macluumada saddexaad, qaansar roobaadka oo aan ognahay inay soo muuqato markuu roobku da'o kadib ayaa laga yaabaa in dad badan aysan macluumaad ka hayn. Waxaa laga yaabaa inaad wax badan horay u aragtay, xitaa hal mar amaba ka badan. Haddaba qaansar roobaadku ayaa muuqaalkeedu yahay sida inay wareegsan tahay oo qayb yar laga arki karo, balse xaqiiqada ayaa ah inay tahay mid toos u wareegsan. Midaasina waxaad ku fahmi kartaa adiga oo kora dabaq aad u dheer, welibana sii kora dabaqa ugu sarreeya. Markaas ayaad arki kartaa wareegsanaanta qaansar roobaadka. Xayawaanaadka kala duwan ee aan wada garanayno dhammaantood waa hindhisaan, balse waxaa suuragal ahayn in qofna fahmo isla waqtigaas ay hindhisayaan. Tusaale ahaan, waxaan arki karnaa qaabka uu farasku u hindhiso, sidoo kalena shimbirkan yar ayaa asna sidan u hindhisa. Bal adiguba eeg. Darbiyada waaweyn ee Shiinaha. Darbiyadan ayaa ah kuwa lagu tilmaami karo kuwa ugu waaweyn ee bini'aadam sameeyey, waxaana sameeyey dowladdii Shiinaha ee hore. Wuxuu dhererkiisu gaarayaa 9,000 oo kiiloomitir. Darbigaas ayaa ah mid aad u ballaaran oo meel dheer laga arki karo, isagoona u dhow magaalada Shanghai ee ku taala waddanka Shiinaha. Intaas ayaan ku ekeenaynaa macluumaadka. Fadlan hadday tahay markii kuugu horreysay ood soo booqata kanaalka, rukumo oo saar calaamadda subscribe-ka, lana wadaag kanaalka oo sii gaarsay ugu yaraan 2 qof. Waad ku mahadsantahay daawashadaada.
fii amaanillaah.